tan iyo sanadkii 2005 waxaa markii ugu horeysay la bedelay golihii wakiilada ee kuraasta fadhiyay muddo ka badan 15 sano Somaliland. waa muddo ku siman dhalashada qofka codeeyay maanta. doorashada wakiilada waxaa ku siskanaatan deegaanka oo iyadana 10 sano kadib qabsoontay. haddaba waxaynu eegaynaa saamaynta rajada iyo guusha ay ka hanayso doorashada Somaliland iyo dhacdooyinka waaweyn ee laga diiwaangeliyay. maxaa ka dhashay doorashada Somaliland? dhowr dhacdo ayaa laga diiwaangeliyay doorashada. waxaynu eegi doonaa qodobada ku wajahan ilaa iyo 4 marxaladood oo doorashada ka dhacday. doorashadii ugu horeysay oo mucaarad iyo muxaafid ay ku wada qanceen, rabshado dhicin, ilaa haddana ku soo dhammaatay dhibaato la'aan ayay doorashadani ku suntan tahay. 2. doorashadani waxa ay bannaanka keentay wacyiga dadweynaha iyo dareenka laga qabo hoggaaminta dumarka. isku sidkan in ka badan 300 oo kursi oo ah deegaan iyo golo wakiilo. waxaa dumar loo doortay 3 kursi oo deegaan oo kaliya, taas oo ka dhigan in kuraasta golaha wakiilada aysan fariisan doonin ruux dumar ah. 3. mucaarada baabulan. dhaliisha ugu weyn ee loo hayay xisbiyada mucaaradku waa inay ahayd inaysan abuuri karin jawi la xisaabtan xukuumadeed, balse taasi waxaa beeniyey doorashada isku sidkan oo mucaaradku ay cod aqlabiyad leh oo gaaraya 70% ku soo baxeen. 4. markii ugu horeysay oo 6 magaalo ee waaweyn ee Somaliland mucaaradku ay gacanta ku dhigeen. waxa kale oo u raacda haysashada kooramka baarlamaanka, waana caqabad xoog leh oo la kulmi doono xisbul xaakimka kulmiye. maxay doorashadan qabsoomidiidu uga dhigan tahay Muuse Biixi, madaxweynihii ugu horeeyay ee Somaliland soo mara oo isku qabta doorasho isku sidkan, xisbigiisuna aqbala guuldarrada doorashooyinka ayay Muuse u tahay. ku dhaca doorashada waxa uu meesha ka saaray in koota dumar loo xiro, isxambaar yimaado, iyo in sanduuqa lagu kala baxo, waana tallaabo kale oo Muuse uu la hooyanayo. 3. boqolkiiba 70 dhaqaalaha doorashada waxaa bixiyey xukuumadda, waana guul kale oo ku lannaan doonta hoggaaminta Muuse Biixi. 4. madaxweynihii ugu horeeyay oo aan xisbigiisu ololaha ku taageerin dhaqaale, waxaana caddaymo la helay xaqiijinayaan in dhaqaalaha dawladda aan lagu maalgelin ololaha musharaxiinta xisbiga kulmiye. 5. xukuumadda Biixi waxa ay madax bannaani siixisay komishinka doorashooyinka oo ahaa mid si weyn loo tuhmayey. riya raacna waxa uu noqday mid ka mid ah xubnaha saamaynta culus yeelan doona sanadaha soo wajahan. doorashada iyo shacabka. mar kasta oo awoodda iyo xukunka loo dhoweeyo shacabka, waxaa rumowda rabitaanka bulsho, kaasoo ku dhisan waxqabad iyo rusheegid, ku dhisan karti iyo dadaal. haddaba shacbiga Somaliland waxa ay muujiyeen xilkasnimo iyo qaangaarnimo garaad. tusaalaha ugu mudanna waa cagafta cadaaladda riixaysay Barkhad Batuun, wiilkii gabooyaha lagu yeesay ayaa jeexay taariikh lama ilaawaan ah, waxaana la qaabeeyay shacbiga Hargeysa oo u muujiyey bisayl iyo inaan la kala qabiil fiicnayn ee la kala qofnimo wacan yahay. waxaana uu beeniyey oo dhigay taariikh casri ah. kani waa Mooge, wiilka Hargeysa dooratay haybla'aan. horjoogaha qabyaaladiidka ayaana xiray rikoor cusub. waa shakhsigii ugu codadka badnaa ee Hargeysa sanduuq cod abid loogu rido. waxaase codka Hargeysa shaqadiisa laga sugayaa 16 mudane ee golaha deegaanka kula jira, kuwaasoo dhammaan isku darka codka ay ku soo baxeen ay dhaafaysa kan Mooge. waxa kale oo si weyn loo eegayaa natiijo kasta oo ay gaaraan golayaasha degmooyinka iyo wakiilada ee Somaliland soo baxay. xisbul xaakimkuna waxa uu wajahay guuldarro weyn oo siyaasadeed. mucaaradku waxa ay isku arkaan in hadda ay joogaan libin weyn oo siyaasadeed. heshiis ama isgaashaanbuursigii mucaaradka ee dhacay 2005 mid la mida ayaa saaxadda mar kale ka soo muuqday, kaasoo xisbiga xukunka haya u muujinaysa niyadjab kale iyo guuldarro weyn. waxa ay doorashooyinka Somaliland ahaayeen 7 maalmood oo hadalhaynta ugu badan ee saaxadda geeska siyaasadeed ee geeska Afrika gaar ahaanna Soomaaliya ay haysteen.